أحمد موسى جامع oo ka mid ahaa musharaxiintii liiska ku soo baxay golaha wakiilada ee gobolka Sool kana sharaxnaa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waraysi khaas ah u siinayay telefishanka caalamiga Hon Cable TV waxa uu mahad celiyay bulshadii soo dooratay dhanka kale xildhibaanku waxa uu mahad celiyay bulshada gobolka Sool ee sida ballaaran uga qayb qaadatay doorashadii isku sidkaneed ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ilaahay baa mahad leh ilaahay noo suurta galiyay in doorashooyinka isku sidkana si nabadgelyo ah dalka uga qabsoomaan ayaanu mahad celinayaa marka labaadna waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa taageerayaashii soo doortay dhanka kalena waxaan bogaadinayaa komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo waxa weeye si habsami leh oo qurux badan u qabtay doorashada iyo xukuumadda Soomaaliland oo si mugiya miisaan la uga hawlgashay bixisayna qarashaadkii ku maxay tahay doorashada ku qabsoontay ee ay naga caawin jireen dalalka kale maanta isku filaashaynu gaadhnay berina waxa loo baahan yahay inuu kale isku filaashaha mid la mid ah u sii gaadhno doorashooyinkan ma ahayn qaar aynu hore u galay waa doorashooyin cusub bariga hore waxaynu geli jirnay doorasho qof iyo food qofku cod buu lahaa madaxweynuhu ku dooranayay baarlamaan buu ku dooranayay golaha deegaanka ku dooranayay laakiin maanta doorashadii u horeysay inuu galay waxay noqotay doorasho inaa hore warag haddana maanta waxa weeye si qurux badan bay inoogu dhacday dorad magacaygu wuxuu ahaa Axmed Muuse shalayna waxaan ahaa musharax maantana xildhibaan baana waxaan aad iyo aad mahad ugu celinayaa shacabkii iyo taageerayaashaydii iskay barbartaagay golaha wakiilada haddaad maqasho wuxuu ka wakiil yahay shacabka iyo qarankaba wakiil buu uga yahay dhanka shuruucda dalka aniguna waxaan ku dadaalayaa oo aynu waxa weeye bulshada ka turjunno baahiyaadkeeda iyo waxay noo soo dooratay وعلي هذا ندير علي ثاني ورركة تلفزيون كون كيبل مقالة داعينبا